kula wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad waliba xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka ayaa toddobaadkan inta uu socdo waxaanu ku eegi doonaa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin daryeelka bulshada ama caafimaadka. Waxaana toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah Doctoresa Nasra Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha xarunta kaararka caafimaad ee Soomaaliyeed. Doctoresa marka hore kusoo dhawow barnaamijka madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. ما شاء الله كله ugu horeyn maxay tahay xarunta ujeedada loo aasaasay iyo faahfaahin guud hal mar. horta xarunta Soomaali Health Care Center waa xarun laga aasaasay magaalada Muqdisho. waxaan loo aasaasay in wax loogu taro bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhankeeda caafimaadka dadka dhibaatooyinka haysta. ujeedka guud ee loo sameeyay waxaa waa in lagu helo hal dhakhtar hal hospital. qofka uu ku xirnaado hal dhakhtar hal hospital. waayahay ay qabato hadda marka oo kamid ah dabcan ujeedooyinkii loo aasaasay xarunta gudoomiyaha u tahay. xarunta horta saan ognahay xaaladda caafimaad waa waxa ugu weyn qofka backbone u ah ama laf dhabar u ah bulshada Soomaaliyeed. marka Soomaaliya wadankeena uu kusoo badanaa isbitaalaadka lagu wada furay magaalada ama private sector ama government ama public sector ha noqoto. marka waxaan anaga diiradda saarnay private sector-rada maadaama bulshada badankood aadaan xarumaha oo private sector marka laga reebo MCH-ka iyo maxaa la yiraahdaa xarumaha kale dawladda xukunta. marka xarumaha private sector-ka waxaan diiradda u saarnay waxay tahay qofka markuu tago kala tacaddi caafimaad oo kala kulma ha ahaato inuu adeega dhiskoon oo qofka oo doonto ha noqoto inuu maxaa la yiraahdaa qofkii markii oo u baahdo inuu dhakhtarka xilliga oo la kulmi lahaa inuu isbitaalka hadana uu sii aado. marka waxaan rabnaa taas oo dhan inaan cirib tirno. waxaan u sameynaa Soomaali Care Center inuu qofka uu helo hal dhakhtar hal hospital. ujeedadeena ay tahay in isbitaalkaas adeeg walba aad ka heli karto. isbitaal meel walba joogo waa isbitaal laakiin wax qabadka lagu kala duwan yahay. soo wax qabad walba oo qofkan bukaanka ilaa xad loo sameyn karo isbitaalaadkeena waa ay leeyihiin. marka waxaan u soconno waxay tahay inuu qofka daryeelkiisa dhan oo ka helo hal hospital. haddii aad faahfaahin ka bixiso hal qof iyo hal isbitaal dadku sidee u sameyn karaan يعني qaabkee u dhigan tahay markii saawada ognaada family kasta waa minimum 5 maximum 10 ama inta ugu yar 5 inta ugu badan 10 maadaama inta ugu yar 5 ay tahay inta ugu badan 10 ay tahay waxaan diiradda saarnaa family kaas oo dhan inay isbitaal X ay ku xirnaadaan. isbitaal X adeegyada uu fulinayo dhammaan uu haya wixii loo taag waayo ama dal dibadda hala aado ama dal gudaheed isbitaalka loo saaxiib leeyahay haloo diro oo isbitaalkaas inuu qofka ka helo. soo waxaa la heli karaa waxa la yaqaan HIMS Health Information and Management System. sidee loo heli karaa markay xogta soo buuxido oo bukaankaas waxa loo heli karaa bukaanka inuu lahaado hal dhakhtar. soo laakiin maalin walba haddii qofka uu taagnaa isbitaalka idaacad laga xayeysiiyo isbitaalkii qof filan oo u sheegto waxa meesha ka dhumaayo xaqiiqatan cudurka saxda laga daaweyn lahaa sida qofka inuu ka tukaamaysto ama wax uu ka gato farmasi oo iskiis isku daaweeyana. soo hadda adiga cudur ku haya garanaysid isbitaal ma tagtay Soomaa. soo dadka badankeena anaga waxay sameeyaan inay direct u aadaan maxaa la isbitaalka markaas la dhafartaas garay. marka waxaan rabnaa inaan waxaas laga tago bulshadeena ay wajahdo ama ay aado adduunkaas inuu ka jira hal dhakhtar hal hospital. isbitaalkaas marka wuxuu ka helayaa consultation waxa la dhahaa la talin qofka ama xilligaas guurka soo galo oo inuu saaxada guurka rabo inuu noqdo ama lamaan is guursanaa ama ha noqdaan dad family oo ku xiran anuga ka xanuunsan ayday xanuunsatay daawada laftirkeeda waxa la yaqaan side effect ama saameyn. soo qofka markuu qaato saameynta isku aragshada wareer muusan qabi jirin daawada markuu bilaabo tusaale ahaan ka wadaa wareer qofka la kulmay. soo wareerkaas qofkaas oo la kulmay waxa direct loo soo xiriiraan isbitaalka. soo waxa loo sameeyaa group WhatsApp isbitaal walba inta ku xiran waxa uu sameeynaa group WhatsApp groupkaasna bulshada kala soconaysa isbitaalka. soo hadda emergency u baahanta guriga laga soo doona haddii kala aad imaan karto inpatient ahaan oo imaan karto qofka waa la keenaa. waayahay isbitaalada xeegaas oo dawo walba laga heli karo sidee lagu heli karaa oo waxaan ognahay isbitaalada tusaale inay u kala qaybsan yihiin isbitaal lafa kaliya daweeya waa inay isbitaaladu lahaadaan sector walba Soomaan ama qaybo walba isbitaalka laga dhaxay. soo waxa ognahay waxa loo yaqaan caafimaadka waxa loo qeybiyaa dhowr qaybood specialist iyo hospital. erga hospital markii la dhahayo waa in laga wada dhammaan delivery. specialist markuu yahay ama dhakhtar lafaha noqdo ama dhakhtar wadnaha noqdo ama dhakhtar waa qaas macnaha. soo dad waxaa jirto cudurro oo non communicable disease loo yaqaan ama cudurro aan faafin qabo. dadkaas cudurrada aan faafin qabaan marka waxay u baahan yihiin dhakhtar specialist ah. soo specialistaas kale lagu xiri karaa qofka tusaale kale urology doctor
dhaqtar keliyaha kaada mareenka qofkaas mar walba waxaa loo sameeya keliyaha laga dhaqaa dhaqtar consultation ma qofkaas lagu xiraamana istalkaas ku xirana haddii kale qofku way dhale oo iyadu waa productivity leedahay oo ilmaha qabtaa pediatric doctor loo baahan yahay internal medicine loo baahan cudurada guud gyno waxaas dhan marka isbitaalo kulansa jirto anaga gacanta ku hayno isbitaalaadkaas qofku aada so waxaa la helayaa qofkii dhaqaale ahaan inuu maxaa la rahdaa meesha uu ka faa'iido wax jiib marka anaga kaarkeena uu qaato labo inuu ka helo facility isbitaalkaas oo dhan inaysan cidna ka hor istaagi karin saddex tixgelin gooni in la siiyo oo ka baxsan oo qofka shakhsiyaadkiisa u tago isbitaalka sababtoo ah bukaanada waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood midna waa patient midna waa consumer midna waa client patient waa mid emergency dhaawac soo gaaro automatic meesha la keeno isbitaal ma yaqaano midna waxaa waaye consumer waaye just like abal unit la sheego isbitaalka wuxuu yidhi waxaan bixinaa adeegyo free ah soo qofka soo ordaayo imaana freegas ku faa'iideysana adigu ku kasaay marka isbitaalka lagu xiran laakiin freegan ku faa'iideysana qalimaadkii waxaas aad ka dhigtay midna waa client based on hospital meel kale ma socdo isbitaal marka anaga waxaan rabnaa inaan ka guurno waxaa loo yaqaan consumer iyo patient u guurno client in isbitaal base u lahaa soo hadhow waxaa fududaanayso cuduraadka ugu badan ee dalkeena laga daaweeyo sanad kasta in la helo loo family kastana inay helaan hal dhakhtar hal hospital la socdo cuduraadkooda waayahay doctor sidee xaruntiina caafimaad marka ay ugu shaqeynaysaa in uu hirgalo hal qof iyo hal isbitaal والله bulshada dhowr wajiir rabnaa inaan ku gaarsiino inkastoo aariyo cusub ay tahay laakiin caalamka ay ka shaqeyso caalamka oo way ka jirtaa oo inuu lahaado qofka consultation ama meel laga taliyo ama dhakhtar toos ugu xiran inay laakiin hadda markii loo sameeyo waxaan u isticmaali doonaa wadiiqooyin badan ee bulshada aan ka tuseyno waxyaabaha khaaska ah oo xambaarsan yahay message anaga xambaarsanna yaan ka tuseynaa jaanib walbo sidoo kale isbitaaladkana aad ugu dhimriyaan ama aad ugu naxariisteen markaan aadiyadan aan fikrad anaga u geeni bulshada Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan soo ma jirto eedeenta ama saadinka warheysiinbo idaacadda tiin ama TV tiin waxyaabo badan waxaa jirto bulshada involvement ku ah adinka aad ka wareysaan tusaale maamaha dad wareysta tira ka waran isbitaal fulaan wariga tayo gulada waxaan ku hayaa habeertamana soo waxay soo qaadanay kuuro daawo ah oo loogu talagalay inay isticmaasho 14 bari ama 2 bari ama 7 bari soo kuurada ayadoo dhamaanna waxaa meesha usoo fadhiisanaysa caasho kale oo dariskeeda isbitaalka loo tagtay sax isbitaalkaas ma xumo kana ka tagta ma xumo laakiin maxaa waa bulshadiyaasi qaab daran iskugu fahamsiinayso nidaamkii oo caafimaadka loo mari lahaa ama qof dictator nafsadiisa raba inuu u taliyo ilaa heer qarka oo semi conscious ama unconscious oo noqdo isbitaalka la keeno ama daawada poison oo kusoo noqdo ama kusoo sumo in isbitaalka dhaat ahaan loo keeno marka waxaan rabnaa inaan waxaa la raahdaa isbitaalaadkana ma xumo in bulshada wacyigelin loo sameeyo horta kow community awareness waxaa kamid ah maanta TV-gan oo waayahay doctor sidee marka loo mideyn karaa isbitaaladii oo ay u ogolaan karaan in hal qof iyo hal isbitaal ay dadku ku xirnaadaan si toos ah waliba iyagoo aanan isbitaal kala aadeynin oo qaabkii aad sheegaysay kliyantiga lagu guuri karaa isbitaalaadka horta xoogooda anaga hadda waan soo dhaweeyeen waa private sectors governmentalka waa iska free saa ka warqabtaan waa MCAjadii iyo xarumihii kale dowladda waa iska free marka kuwan private sectorka qofkii wuxuu u baahan yahay follow upkiisa wixiisa u baahan yahay soo qofku markuu charge baxsadan dadka kale muu eka macna waxyaabo badan oo xuquuq u hela marka private-ka xoogoodana way soo dhaweeyeen aaliyadana way soo dhaweeyeen dadka inay qaabilaan diyaar u noqdaan qaar badan waxay ka tanaasuleen in bulshada discount balaaran loo sameeyo qaar badan waxbay ka tanaasuleen marka oo anaga aan kaga xambaarsanahay qofkii oo ay dhiidan qofkii lagu soo maxaa loogu soo dhaadhicinayo loona sheegayo qofkii inuu ku xirnaado hal dhakhtar hospital markuu asig taag u waayeen cid qof secondary ama taad facility u baahan oo la heesanayo ma lahan soo isbitaalku wuxuu diyaar u yahay inuu adeegyada dhan u fuliyo ilaa man oo qof dalka wax loogu qawayo la gudbiyo ama consultation dhakhtar kale xuquuq u leh ama isbitaal kale xuquuq u leh qofkaas loo transfer gareena marka ay dhidaan boqolkiiba 85% isbitaalaadku ay soo dhaweeyeen waa agreement kale waayahay caqabadaha idinka hortaagan in ay hirgashaado maxaa kamid anaga ka ahaan hadeertan wax caqabad oo bulshadaas in loogu gudbiyo aan ahayn oo horta aan haysto ma jiraan ayagana wadiiqada waxay ku xiran tahay hadda marketka ama suuqa sida qofku idiyada kusoo geliyo ku xiran tahay taas waa anaga maanta u dhimaana TV-ga qaranka waayahay adi maxay kugula muuqataa aragtida tiimkiina caafimaad oo aad adiga gudoomiyaha u tahay ay keeneen in dhaqan geli doonto in ay noqon doonto mid bulshada ay ku baraarugaan aragtidaada sidee kugula muuqataa kaani ahaanteeda ama kanasar ahaanteeda iyo tiimkiina anaga fikradaan ahaan keensanaba waxaan u arkaynaa boqolkiiba 85
in aan 85% ee ID-dan hirgelayso waa ID-yo saddexda interest waxaan baarsan interest koowaad oo isbitaalaadka nidaamkooda iyo arrangementkooda ugu saxsanaay laba shakhsiyadda badbaadintooda iyo anigoo pride name-ka aan ka helayna inta waxaan u aragnaa 85% inay hirgelayso macnaha hadduu alla awoodda nafta baaqi inuu kaga dhigo waayahay waxay sheegtay in adduunkana sidaa loogu isticmaalo hadda sida isbitaalladeena u shaqeeyaan iyo dadkaba ay u aadaan miyay ka duwan tahay kana caalamka hal mar sida hadda waxay sheegtay in sorry waxay sheegtay in ay ka duwan tahay yani ay sida caalamka oo kaleeto inaan hadda ka duwannahay fikraddiinuna ay la jaan qaadayso caalamka marka sida hadda isbitaalladu dadka ay u aadaan oo isbitaalladuna ay u daweeyaan dadka miyay ka duwan tahay sida caalamku si guud anaga markii dib analyze aan sameynay dad waxaan nama dhokaal ah analyze badan markaan sameynay kadib aadiyada waxaan soo wadnay muddo 1 sano iyo 6 bilood ah aan analyze-keeda aan wadnay so waxaan soo ogaanay in bulshadeena boqolkiiba 15% oo u anayso macnaha toxicity ama sumowid drug toxicity u dhimanayso so ID-dan waxay isbitaalaadka dan ugu jirtaa qofkaas inay xogtooda dhan wada helaan macnaha waa la wada xambaarsan tusaalada guriga deganta waxaa laga yaabaa 3 hospital 4 hospital in la kala aado macnaha qofka isbitaalka maanta aadane markuu daawada kala barbar siinayo qof kale daawo kale u keeno oo leeyahay kana ku fiicnaan oo kii oo bilaabo xanuunaad kale oo dareemo haddana muxuu ka baxaa meel kale oo aada so qofka controlka lama hayo programkan waa hal sano 1 year waaye oo qofka daatadiisa la haynaa isbitaalku uu haynaa macnaha sanad lawa oo falo abkiisa iyo wixiisa dhan anaga aan sameynayna macnaha sanad kadibna qofka register oo sameynaa ama isbitaalka daatadiisa toos oo qofkaas uu la xiriiraa so halkaas sano marka qofkan waxaa la helaa inta family-kan kasoo booqatay isbitaalka kasoo booqataa la helaa so waa ID-yo xaqiiqatan caalamku ay leedahay waxay ka leedahay qofka inuu dhakhtarkiisa uu yiraahdo hello doctor waxaan la kulmay xanuun noocaas ah annaga ma lihin macnaha shalay kaa la kulmay maanta ma la kulmi way macnaha tomorrow kaa la kulmi doonaan jaadisa balanfo dadka igu hareereysan ay gaarayaan ma macnaha qofka markuu bukadana oo Soomaalida tirada nin bukaa 100 u taliso macnaha afar dhinac laga soo fadhiisana kana fiican isbitaalaadka dhan ma xumo macnaha nidaamka ay ku shaqeynayaan dhan ma xumo laakiin waxaan rabnaa bulshada in la fadhiiso nidaamkooda la fadhiiso waxaan lagu fadhiisan karaa ID u dhaxayso isbitaalka iyo bulshada u dhaxayso inay ka dhex adeegto macnaha waa tan hadda aan fikradaan la imaan waayahay fikraddiina miyaad la wadaagteen isbitaallada magaalada Muqdisho hadda inta badan iyo guud ahaan Soomaaliya si fikradda u noqoto mid dhaqan gasho waa la wadaagnay isbitaalaadka waan soo dhaweeyeen si qurux badan noo soo dhaweeyeen waana dan guud ay u arkeen oo bulsho qofkii raba inuu wax u taro waa dan guud marka waxay u arkeen dan guud aadayna u support gareeyeen soo dhaweeyeen si noola dhaqmeen si xaqiiqatan aan inta soo koobi karin waayahay si guud bulshada Soomaaliyeed caafimaadkooda dabcan waxaan aragnaa in mar walba isbitaallo iyo la aado marka wax ma ka bedeli doontaa sidii hore la yaqaan anaga saan u aragnaa iyadana wax badan ay ka bedelmi doonto saan ku sheegay waxaan sameynaa record waxa loo yaqaano ama data keeping qofka markii data xogtiisa la keediyo waxa la ogaan karaa xaaladiisa caafimaad meesha ay marayso so qofka sameynana waa anaga isbitaalaadka teamkiina ururkiina Somali Health Care Center dhalinyaro miyaa ku jirta dad waaweyn oo ka shaqeynaya aynkay u badan tihiin dad waa numberka waxaan u dhaxeynaa 30 ilaa iyo 20 30 30 u dhaxeynaa laakiin dalka gudihiisa wax ku barto jecelahay dadkeeda ama dadkooda wax gaarsiiyaan waayahay maxay tahay doorka dhalinyaradu ay ku leedahay marka daryeelka bulshada iyo caafimaadka iyo in fikradaha noocan oo kale oo caafimaad oo dalka ku cusub ay soo kordhiyaan si lagu ambaqaado ama dunida caalamka aan ula jaanqaadno doorka ay ku leeyihiin dhalinyaradu maxay tahay dhalinyaradu horta waa backbone-ka ama laf dhabarta bulshada waaye waxaan lahaa boqolkiiba Soomaalida 75% waa dhalinyaro la lahaa marka fikraddu waxay tahay anaga dhammaan waxaan sameynay in dhalinyarta Soomaaliyeed aan qaadano even in ID-da nagala shaqeeyaan qaar qayb kamid ah oo shaqo abuur dhalinyarta loogu sameynayo inay sameeyaan shahaadadooda inta guri la fadhiisan lahaayeen ama ay ku wareeri lahaayeen inay irid garaac u sameeyaan bulshadooda ID-da cusub inta qaadaan bulshadooda kasoo maxaa la dhaadhiciyaan so anaga waxaan ka qayb qaadan qayb horumarinta dhalinyarta maadaama anaga dhalinyaro aan xanuunka dalka iyo dhibka shaqo la'aanta ee leedahana wax ka dareensan ama wax ka fahamsan so dhalinyarta message ku xambaari karaan waxaa waaye in dadkooda ay la wadaagaan
kana waa qayb kamid ah badbaadinta sababtoo caafimaadku waa noloshuna waa caafimaad so qofka hadduu caafimaad qabo idmi nolol uu samaysan karaa noloshuna waxay ku hirgashaa dad caafimaad qabo marka dhalinyarta waxaan u arki karnaa inay dhan walba ama jaanib walba nagala qayb qaadan karaan horumarinta campaignka hay waayahay fikraddan cusub dabcan dadku isku nooc maaha qaar baa dabaqada sare qaaraan iska bixin karin waxaa jira cisbitaalada lacagtooda iyo qaabkay u daryeelaysaa ama u kaabaysaa dadka aanan awoodin in cisbitaalka qarashkiisa iska bixiyaan ta kalena programkan ama fikraddan cusub ee hadda dhalinyaradiina aad wadaan wax lacag oo ku xiran iyo wax shuruudo miyaa jira oo qofka looga baahan yahay si uu uga mid noqdo horta aad u mahadsan tahay waxaan u istaajinaa waxay tahay ama dhidibadaan ugu istaajinaa waxay tahay triple interest horku u sheegay 3 jaanib in laga fiiriyo jaanibka koowaad isbitaalku wax badan ka tageen isbitaalaadka qofkii waxaa loo sameeyay awal marka qofkan oo isbitaalka uu yimaado qofka ama ka dhinto ama qofkii intuu caafimaad ilaahay u bogsay raba inuu baxo waxaa laga yaabaa dhowr xafiisaad inuu dhaho wax ii dhimo wax ii yeelo iska daba wareeg soo kaarkan wuxuu fududeynaya inuu intaas ku imaanin dhiskoon cayimana jirto isbitaalaadka ay bixiyeen qofba 10% 15% 20% 14% whatever they can mafahant isbitaal walba intuu mugiisa la eegaya in la mido wuxuu u bixiya dhiskoon sidoo kale waxaa kamid ah la kulanka ama fiisitarka dhakhtarka in muddo hal sana looga dhigay si free ah si bulshada Soomaaliyeed ugu xirnaadaan halkaas dhaqtar hospital yoolka la wada lahaade annaga isbitaalaadka aan u istaagnan waxay tahay badbaadada shacabka waay sababta maanta waxaan ognahay qof kasta aan gori oo Soomaaliyeed boqolkiiba intii wax baratay waa number iska yar intii wax ka og filiga caafimaadka waa number iska yar laakiin xoogooda qofka hadduu xanuunsado farmasi uu tagaa jaa wuxuu sheeganaa calaamadihii kadibna waxaa lasoo siinaa daawooyin marka waxaa rabnaa taas inay xiranto macnaha waygaas dhan oo xirmaa marka waxaa kaarkan ku jirto dhiskoon balaaran oo loo sameynayo dadka waayahay hal mar ma waxaa ula jeedaa in farmashiyaasha oo dhanba laga suulo oo aan la isticmaalin xataa maya farmashiyaasha dhan anaga ma dhihino macnaha halaga suulo oo halaga taga ma dhihino laakiin xoogooda maaha farmasiga u dhaqan sida hospital farmashiyaal badan waxaa jirta qofka sida hospital inuu qofka joogo camal u daaweeyo in risk markay kusoo galaan isbitaalaadka loo soo gudbiyo waa inuu door ku lahaado caafimaadka laakiin uusan xoog laakiin xoogiisa aysan ka shaqeyn saa ugu naam isbitaalaadka caalamka waa qofka waxaa loo geeyaa rajeeta loo geystaa soo qof iska socda waxaa jirta ku dhahay waxaa u baahanahay sharoobo fulaan saa qofkaa dalbanaa jaa already asama soo arkay meel kale ka soo arkay wuxuu leeyahay marka sharoobo fulaan u baahanaa ninka farmasiga marka akoo dhinto jeebkiisa soo fiirsanaa miiska soo saara qof sharoobada kusoo gala isbitaalka markii qof loo soo gudbina waa kiis mar hore toolo qofka saaxada caafimaadka la sheegtay oo heerkan soo gaarsiiyo waayahay programka ama ideadan cusub ee hal qof iyo hal cusbitaal ah sidee u baabi'in kartaa ama uga hortagi kartaa in dadku dawooyin aan xanuunkooda ahayn ay isticmaalaan wallahi naanta baasan ku dhihi karno anaga waxaan isleenahay on 20% dadka wax ka gaari kartiin oo dadkeena dad laga warhayo waa saana ka warhayna marka waxaan isleenahay ideadan haday gaarto 20% wax badan wax ka bedeshay waayahay si guud bulshada Soomaaliyeed hadda cisbitaalada inta badan waa la jiifaa qaar si maalinlaha si toddobaadlaha si bilaha ugu tixan oo aada iyaga sidee fariintan ku gaarsiin kartaan si ama u qaataan ama ugu dhaqmaan maadaama mid anfacayso oo aysan ogeyn ay tahay oo u baahan in cisbitaalkii iyo dadkii la isku xiro horta dadka anaga waxaan kusoo geli doonaa qaab saan hore ugu sheegnaba in dadkii loo sameeyo guryahooda lagu booqdo dhalinyara ka shaqeynaysa in guryahooda ugu tagaan sidoo kale in aan ugu soo gudbino message-keena ama doorka anaga aan ka leenahay qaybta caafimaadka TV-yada dalka ka jira marka iyo in dadkii loo marsiiyo xarumaha Facebook xayeysiimaadka loogu geeyo dadkii marka isbitaalka anaga waxaan shuruudeena tahay inaad ka tagto maalin walba isbitaal tagto maalinka kaarkiina qaadato oo maalinka ugu dambeysana meel walba iska istaagto macnaha maalinka ugu dambeysay waayo isbitaalka qaad kaarkiisa lay ku xirnaaneen not only you marka shakhsi kaliya kuma xirnaana waxa ku xirnaanaa family soo kale waxa u sameynaa ardayda Soomaaliyeed dhigato jaamacadaha waa individual kaarka application-keena meel walba laga soo degsan doonaa hadii Allah wadal karaa noqdo laga arkaa marka individual ka ardayda Soomaaliyeed waxa loo sameeyay discount aad u ballaaran ama xadmiga lacageed oo isku baari lahaayeen qofku waxa xanuunsaday isbitaalka uu tagay ku dhawaad lacag waxa laga yaabaa boqolaan in laga soo qaato qofka waa maalinkaas alla ku badkaa soo hadana mar labaad hadana qofka uu tagay si lamid ah isla sanadkaas xanuunsan mar saddexaad hadana xanuunstay aan ka reebno dadka qabanan communicable disease
mar walba skortooda la controla dhiigkarkooda la controla dadkaas sooma kolestaroolkooda la controla markii kuwaas laga soo tago waxaa jira dadyo kale oo caadi u booqdo iska xanuun iska qabta isbitaalka ah so ardayda Soomaaliyeed oo identity ID kaarka isbitaalo kamid ah isbitaalaadka anaga noo diiwaan gashan ayaa waxay kusoo dhaweeyeen inay u sameeyaan lacagtii qofkaas daawo ahaan ku tagi lahaa saddex u dhig kamid ah si loo helo dadkaas inay lahaadaan hal dhakhtar hal hospitaal ujeedka loo ordayo waxay tahay not only money waxa loo ordayo waxay tahay hal dhakhtar hal hospitaal in qofku uu helo so waa tara ana wala kastaba ama 4 bilood marba qofku wuxuu imaanaa isbitaal check up isku sameeyna kaarkiisa u shaqeynaa 4 bilood kala marna madna wuxuu isku sameynaa check up kaarkiisa u shaqeynaa 4 kala dana mar kaarkiisa u shaqeynaa waa 3 mar sanadkii inuu qofku uu ku imaado laakiin 4 bilood mar ay tahay marka waxa anaga meesha kala jeednaa ama kaleenahay qofku yuusan dhul dhicin oo u dhul dhicin xaaladiis in la control waayo waxaas la socdo oo bukaanada dhaqaatiirta la socdaan marka reason oo socon waa kaas isbitaal ka xun ma jiro laakiin dadkii aan baraarujin badan lahayn anagana waxaan u istaagnaa maadaama dalkan wax ku baran in dadka baraarujin dabcan adinka maamulaya xaruntiinan kaariska iyo sida la iskugu xiran isla maamulaya hadduu qofku isbitaalkii uu ku xirnaa uu ku qanci waayo miyuu ku bedelan karaa adeeg service-ka loo qabto service-ka aniga badan waxaa diirada saarayna qof walba isbitaalka ku qanacsanaa inaan macnaha aan siino haddii contract ama nidaamkiin anaga oo nagu jiro isbitaalka oo nagu jiro ilaa xad macnaha qofka meesha geynana haddayba dhacdo inaan isbitaal kale anaga aan geyno consultation weakness laba loo qeybiyaa waxna waxbaa ka dabada ka riixaa macnaha predisposing factor jiro waxna waxaa waaye qofka uu la kac u sameyn karo macnaha anaga mar walba ma xogminayna qof noo yimaado inuu dhan islaaga ku sameeyo laakiin jooska wuxuu kamid yahay markood xafiiskeena ama xarunteena nagu soo booqdo qofka oo arko isbitaalaad xog ahaan ama video ahaan istaalka uu soo arko waxa uu u bixiyo adeegyadiis inuu yiraahdo kana u baahana so midka anaga waxaan ka cararana maalin walba inuu mid taagna sanadaas marka uu ku dhameysana whatever the hospitalized kadib wuxuu lahaan karaa sanada kale inuu yiraahdo leega badal waayahay sidee marka dadka hadda caafimaadka u baahan programka ama idea aad tiimkiina dhalinyarada ah wadaan u baahan oo in hal isbitaal ay ku xirnaadaan kaar ay qaataan sidee ugu fududaan kartaa oo wadooyin loo maray iyo miyaa jirta oo fududeynaysa anaga beejkeena dadka naga soo raacayaan sidoo kale waxaa sameynaa meelaha bulshooyinku iskugu yimaadaan sida beerta meelaha dadka iskugu yimaado ku sheekaystaan oo kale in anaga bulshada loogu geeyo laguna wacyigeliyo macnaha meel walba anaga aan ka muuqanay ilaa xad waa rajeynaynaa si ay bulshadaas saa hore ugu sheegno 20% haddaa gaarno waxaa sidana maas badanaa sameysaan oo isku xir badanaa sameysaan 20kaasa waxay bedeli doontaa milyaamaad kale oo harsan waa saa anaga rajeynaya hadduu allah wadala nafta baaqina kaga dhigo waayahay gabagabadii barnaamijka Doctoreso sidee bulshada guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba ay u noqon karaan kuwa caafimaad ahaan xitaa isbitaalada kuwa caafimaad ahaan la jaan qaada dunida kale oo hadda sida fikradiin oo kaleeta isbitaalku qofku uu hal isbitaal ku xirnaado caafimaadkiisa mar walba uu ka warqabo isagoona waxba u dhibeynin dhanka kaleeta caafimaadkiisa ama waxyaabo kaniini ama dawo san xanuunkiisa aan u cuneynin yani bulshadu sidee caalamka ula jaan qaadi kartaa oo fikradahan dhalinyarada Soomaaliyeed soo kordhinayaan iyo ay noqon karaan kuwa noloshooda ay ku dabaqaan horta maasha Allah wacyigelintu waxay ka socotaa 3 jaanib ay ka socotaa jaanib anaga iyo jaanib oo meelahan oo ilaha bulshada ay ku kulantay iyo jaanibka isbitaalka saddexdaas horta dartaan xoogooda ka socotaa waana jecelnaa waan rajeynaynaa wasaaraddeena qaybteeda caafimaadka active ee noqoto ee bulshada laftirkeeda masaajida wacyigelin kasta wallo haddaba ay bixiyaan wacyigelin bulshada dhankeeda laakiin uma aragno dhanka private-ka ee ka wacyigelinaa laga yaabo inay dhahaan masaajidoo kale hooyadii dhalaanka si fiican loo keergaraya inay dhahaan kor hoosna qofka free ku qaadana marka waxaan rajeynaynaa insha Allah isbitaalaadkii anaga sidaan hadartaan isku garab istaagna si lamid ah inaan bulshadii message-keena anaga ku gaarsiino mass media oo marsiino xogteena idin insha Allah waayahay gabagabadii maxay tahay fariinta talada iyo tusaalaha aad iyo aragtida guud ahaanba aad soo jeedinayso bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si fariintaada ama programkiina dhalinyarada aad hogaaminaysaan uu gaaro anaga xogta guud aan rabo inaan bulshada ama dhalinyarta Soomaaliyeed ama cid walba oo jecel saaxadda caafimaadka waxaan u direynaa fartiin ah caafimaadku waa shayga ugu muhiimsan ee shaqsiga marka waxaan leenahay anaga nagu soo dhawo nagu soo bir oo nagala noqo saaxiibo dhow
si aad adiga xogtaada caafimaad ilaah baa cudurka haye loola socdo loona helo dhakhtar adiga kugu habboon halkaad maalin walba aad istaagi lahayd dhakhtar waa si guud taa dareeno waxaan meeshaan mahadcelin ballaaran ugu diraya dhammaan isbitaalaadka ka tirsan xarunteen waxaa leenahay saad hore noogu dhiirigelisay si lamid ah ayaan bulshada ugu dhex jirnaa insha allah aad waa mahadsan tahay doctores waxay ahayd doctoresa nasra cilmi cabdi oo ah gudoomiyaha xarunta Somali Health Card Center oo ka shaqeysa ururinta iyo isku xirka dadka iyo isbitaalada si gaarana in dadku ay ku xirnaadaan hal qof yani qofku uu ku xirnaado hal isbitaal nasro markale aad u mahadsan tahay waxay marti ku ahayd barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadlaynay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin daryeelka bulshada iyo caafimaadkaba guud ahaan barnaamijkeeni madasha dhalinyarada oo toddobaad waliba gooraan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed halkaas ayuu nooga yahay barnaamijka waxaan idiin tabinaya aniga Xuseen Xaaji Xasan waxaa sidoo kale mahadcelinayaa kaamirmaanada iyo farsamayaqaanada barnaamijkani ka shaqeynaya inta uu socday intaanu barnaamijka la ku kulmi doono sida ay nabadgelyo